ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sidii ay wada maqadeen xanuunkii ila soo gudboonaaday oo in muddo ay hayay gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa xubnaha baarlamaanka iyaguna soo noqodkaygii aad ii soo dhaweeyay walaacna ka muujiyay xanuunkan qabay anigoo caafimaad qaba ayaa ku soo laabtay dalka aad iyo aad intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa News TV oo runtii fursadan siiyay inaan aniga iyo barsoorkayga weyn oo Barsoor Dalxa oo aan runtii jecel had iyo jeer inaan ka agdhawaado oo aragnimadiisa iyo intabaan inaha dhan walbaba dhan siyaasadeed dhan suugaaneed iyo mid wadaniyeed baan inaha ag joogo wixii hadee kelmado ku haboona haday noqon lahayd af Soomaali ama af Carabi intaba Barsoor Dalxa ayaa inaha arrimahan qaliijka inaha runtii kaga hadlay waxaan u xoojinayaa intii uu yiri oo ayaan leeyahay waa sida uu yiri Soomaalidu xiliyadan adag ma ahan dad loo caga juglayn karo dad la oran karo macnaha sida professorkuba mahadiisu ku yiri waa baahanahay waqtiga looma cuno saboolnimada iyo dhibaatada macnaha dad hadana ma ahin runtii sandareerta qaatmaha marka Carabtu waxaad moodaa in aysan aqoon noo lahayn waxaan moodahay in aqoon ay leeyihiin waxaan maalada aqrinay book nin Cornel oo hal yiraahdo uu qoray ee uu leeyahay Soomaalidu waa ku qasbantahay qofka Soomaaliga inaad jeclaato waxa yeelay dad jeclaan dibkooda ayaa badan buu leeyahay marka waxaan leenahay walaalahay Carabta runtii aan diiniyan iyo dhaqan ahaanba intaba aan isku dhownahay waa jeclaan lahayn taariikhda dib u akhriyaan oo ay jeclaan Soomaalidu waxa ay tahay sida professorku uu sheegay boqolaalkii sano la soo tagay dalka kan ilaa inaha xilligii rasuulka kaleey salaatu salaam diintan inaha la faafinay oo ay soo Qurayshtu iyo asxaabtiiba u soo qaxeen dhinacan Abyssinia ama dhulkan Ethiopia Soomaaliya diinta wadamada Carabta way kaga horeysay inay diinta qaadato iyadaaba kaga horeysay marka waxaan leenahay waxa ayaa naga dhaxaya arrimaha qaliijka markaan u soo laabto runtii waxaad moodaa dawladda qaliijku oo niman dhalinyaro ay hadda hogaaminayaan horboodayaan in ay macnaha taariikhdii iyo wanaagii aabayaashood ka tageen inay saraacin bad moodaa waxaan leenahay dib taariikhda waa akhriya odayaashii imaaraadka dhisay macnaha qaabkii ku dhiseen dawladdeedii xoogga badnayd oo 70-meeyadii u suurtagelisay in injineeriyo hadii ilaahay ku idmaayo dad aqoon-yahanina ay u diraan imaaraadka ragii macnaha xilliga joogay baa hadda nool waxaan leenahay marka walaalaha imaaraadka qaladaadka dhacay waxaan u aragnaa in qalad ahayd dawladda Soomaaliya waxaan qabaa inay go'aankii ku haboona ay arinta macnaha ka gaadhay waana runtii ku bogaadinaya waxaan gaar ahaan rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto intii aan dibadda ku maqnaa dawladda federaalku go'aanka ay ka qaadatay arrimaha qaliijka iyo baarlamaanka oo runtii isna arinta xoojiyay oo ka soo saaray go'aan uu macnaha DP World ku leeyahay go'aanka aad qaadateen qalad buu ahaa anagu maadaama anigu gaar ahaan bahda suugaanta lagu tirinahay inta badan dareenka shacabka ayaan eegaa markaasan thermometer maalin dhaweyd baan dhinaca cadaan oo doraad shir aanu ka qayb galnay hay'adan Heritage nin ay noo keeneen adigu crisis committee-ga ama crisis group-ka madaxwa ayaan waxaan u sheegay laba arrimo waxaan ku iri wuxuu yiri waxaan arki doonaa dawladda Qatar iyo Imaaraadka iyo idinkaba waan eegayaa afkaarta inaha Gulf crisis ama dhibaatada Gulfku uu leeyahay oo Soomaaliya saameeyay marka saddexda dhinacana arko baan macnaha cabirka iyo fikirkii aan ka qabay macnaha idin siin doona ninkii waxaan ku iri Carabta aad u tagi doonto waxaad u sheegtaa Soomaalidu xilliyada adag waxay ka qaadaan adadkaysi iyo raganimo iyo kartida ka qaadaan problem kasta oo macnaha ama caqabad kastana waxaan u aragnaa inay hadiyad tahay oo qofnimadayada macnaha lagu tijaabinayo meesha aan ka niraano every problem is a gift problem laantiina macnaha ma koraysid waxaan u aragnaa caqabadahan iyo dhibaatooyinkan aanu hadda wajahayno in aanu ay noo tahay tijaabooyin aanu ku kori doono marka aniga oo dareenka shacabka ka tarjumahayaan waxaan
u sheegay ninka caddaanka ah hees dhexdhexaad la yidhahdo neutral oo kolkii dowladdan micnaha ay ka istaagtay maadaama dad islaam oo walaalaha micnaha ay dirirayeen haddee diiniyan iyo dhan walbaba iyo dhaqan ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa inaysan dhinacna jirsan markaan eegay dareenkii shacabka ayaa waxaa igu soo dhacay ereyo hees ay kooxda qeeldhaan qaado oo ereyadeeda ay ka mid ahayd dhibta maalintaan qabay endaalaadhacaya gaajada la dhuubnaa carabtaa dhargaysa ee dheemanka iyo luulka iyo batroolka dhoofsada ima ay dhaqaalayn waa soomaaligu wey mogta maantoy dhexdoodii warmaha isla dhacayaan dhinaca sacuudiga dhanka qadar haddaan marin bal maxaan u dhibay oo igu dhaaranaya inkastoo dhulkaygii dhaqaaluhu u liito dagaalana ka dhacayaan dhagxumadu ku badan tahay soomaaliha lay dhahayo dhuuniraac ma noqon karo waan dhowri sharaftay hadalkay dhahayaan walla igama dhaadhaco ummadda soomaaliyeed cidnaha markaan ururiyey dareenkoodu sida ayuu ah ninka caddaanka ahaa waxaan ku leeyahay heestatan waana kuu tarjumahayaa markaad u tagto qadar ama wadamada carabta ama hay-adaha kraaskooda u turjumaan kuni marka go-aanka soomaalidu saa weeye idinkana mar kale waan inkaga mahad celinayaa fursadatan aad midnaha aniga iyo professor Abdalha runtii qabiir arrimaha carabta iyo soomaalidaba ku ah aad nagu waraysateen aad iyo aad haddana hawl culus baa noo taalo gudoomiyihii baan midnaha dooranaynaa waxaan rajayn doonaa in ilaahay mid khayr qaba uu midnaha qalinka midnaha uu noogu dhaco mar kale aad baad u mahadsantiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa professorka runtii halkan maanta aad igu soo dhaweeyay oo aan sheeko gaar anagoo leh markaadna aragteen aad tiraahdeen mar haddii fursaddan aan helin labadiinaba waa inaanu midnaha ka faa'iidaysanaa aad baad u mahadsan si aad u hesho warar joogto ah iyo sidoo kale muuqaalo ku xiiso geliya fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee Dan Wadaag Media mahadsanidin